wiil gabo garaad wacan gacantiisa furan tahay marna gacal wadaagtaa hadduu calafka ku galo goor wacan ku joogtay gacaloy. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa islaantii la waayey oo muddo badan idinka maqnayd oo caawa idinku soo noqotay iyo maanta xilligu kusoo gaaray fiidiyowgan intaynu kala maqnayn wax baadaan baa noo kala dambeeyay. waxa kow ka ah makeupkii baan bartay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ma iga aaminaysaa intaa makeup marsada banaanka u baxayn laygu yiri waaw makeupkaaga qurux badan yahay. aan 3 saacadood muraad isku eegayey oo iska sijeysan waayo irmaaniga laygu yiri makeupkaaga qurux badan. kuwii iyiri 2026 waa inaad bahalkaas barataayo waa maasantiin dhammaantiin. kaftan waa intaas markii intaa laga soo gudbo isku soo noqod wanaagsan waxaas dhahay vlog duub laakiin vlogii dhexdaaba kaga soo dhacayba bilow dhan male meeshuu ka bilowday buu ka bilowday. waxaasaan is soo marmariyey gurigan saa isugu qasan hawl baa ka socota saa u labistaa rabay inaa idin tuso laakiin muraayadiiba iyo anigiiba kartoomaan noo dhexeeyey. maanta waxaa u soconnaa meel 2 saac iyo noo jirta 12 daqiiqo tiktok iyo youtube iyaan ka daawaday fiidiyoyadeeda. aad iyo aad bay u qurux badneed aad iyo aad baa uga hela markaa daawanayay. kadibna waxaasin raana inta fasaxyada lagu jiro taga markii hore waxaa rabay inaa 2 ilaa 3 habeen soo seexana laakiin buulasha yararkaa la degayo istuugay dhahaan waa konteenar yaroo la habeeyey. konteenarka yaraa walaal waxay dhaheen qaali too much andeen maba la helayaba ma fahante waqti kalaa ku qoran. safar baa soo galnay kadib markaa muddo 1 saac iyo xoogaa soo soconay meeshaana soo marnay cabitaaniya waxbaa ka qaadanay xoogaa baa laga baxsanay meel walba biyo iyo qurux iyo dad kaambin degan meelahaas hadda idin muuqda dad baa degan baabuurtoodii adduunkooda intay soo jiiteen baashaalay meesha hadday rabaan bilayaal degan. waxaasaa waxaa ku yiraahda cabaar soo daadaawanay kadibna safarkii baan kusoo laabanay. wax yar haddaa soo soconayna laamigii dhan waa la furay. waxaa ujeedeen waa laamigii oo la balaqay hoostiisi doomaa maraya ka waram casriga la marayo meel kastaa martay cagaarka iyo quruxda iyo biyaha iyo wax iskor saara 2 qof oo qor isku haysata iyo qabiil ka ceyrsanaya male. halkan reer hebel baale iyo reer hebel halkan ma deey karaan kama jirto walaal meesha sharci baa la dhigtay. anaguna walaal waxaan isku haysanaa meel yaroo shimbiriya inta gaajo u dhinteen ay ka carareen baa maalin walba dhiig ku daataa ilaahina soo hadeeyo. ugu dambeyn meesha u soconay waa imaanay meeshan iska hor Summerland baa la dhahaa. waa magaalo yaroo ciyaar loo dhistay in lagu ciyaaro bis baa loo dhistay. dharkii baa lasoo bedeshay meelaha tuubooyinka ujeeda walaal waa laga soo boodaya waa laga soo dhexbaxaya odaygii reerka dhammaaba kaas tii yarayna waa ka daba timid deedna tuubooyinkaana waxay dhaheen halaga soo baxo biyo kasoo dharagtay markaan warka gaarsanka afkaa biyo kasoo galeen. anigu dadka baashaalayo biyaha ku boodbooday kama mid ihi adduunka biyo la dhex galaa u nabcahay. kadibna markaa qaybta biyaha kasoo dhammaanay ciyaaro badan oo kala noocnoocay meesha bay leedahay tareen yaraa raacna tareenkan kan maahan tareen kalaa raacna meesha dhan nagu soo wareejiyay kan gaari yaroo caadiyo ahaa. geedan cirka isku laba rogaysay waxay rabeen inay isaaraan oon cirka kasoo qayliyo waa la raaci lahaa haddaana markii hore waxaa jira doon aana duubin doon Viking heblow ay ku qoran tahay baa intay dhaheen xaggaana fiican soo fuul baa fuulaysay cirkeena la gashay 2 saacadood kursi baan ku fadhiyay dhulkii cirka ay la cararayay. naag intay biyo bardacad kasoo dharagtay qaraska buuxda waxay rabaa inay wax ruxmay saaraan. annagii waaweynaa waa sida ciyaalka u boodboodeen roob baa da'ay 3 jeer ilaa 4 jeer telefoonka chargerka intuu ka dhamaado iga dame waxyaalo badan aan duubin baa jiray oo telefoonka iga dame markuu chargerkayga hore horta gurigan kasii qaatay laakiin meesha dhan oo magaalada dhan ah oo de meel walba barayso ku taalo aad chargerka gashan kartid waa la iga diiday walaal waxa la igu yiraahday bahal yara kirayso 30 daqiiqo $3 camal baa ku chargeraysanaysa. saas baa waxa ku misgareeyay wax badan ina duubo. ugu dambeyn alaabteena soo bakaysanay ina baxnaa rabnay waxay dhaheen tareenka u dambeeya afuulno kulli waa wada fuulnay marka kana ugu fiicnaa meesha dhan. adigu waxa ku yiri ma ayaga ciyaarey ma anaga ciyaareyni kala garo aakhirka waa kasoo dhamaanay. ugu yaraan 8 saacadood ba meesha joognay aad iyo aad bay u fiicneed. halka waxay ku xuntay waxay ahayd wax walba asaa u taabati waa qaali cuntadu waa qaali cabitaanadu waa qaali xataa chargerka waa laga kireysanayaa. waxay ku fiican tahay qof intuu isku soo tashto alaabtiisa marka hore usoo qaata cunadiisa iyo alaabtiisa soo qaata
anoo ka gaarin baa aniga la ii sheegay gabar walaashay ay igu tiraaday gabar tagtay baa soo wareystay wax walba waa qaali isku tasho cunadaada qaado laakiin markaa kama gaari karin habeenkii bay ahayd saacad yar baa ka dhimana inaan baxno waa iska soo baxnay tawakal cala Allah waxaan waxay doontaa noqoto waa galeyna waa galnabe marka inta kaleeto aad iyo aad ba u fiican tahay inta tikidkaaga goosatay hadda cuntadaada wadatid kal iyo laaba caruurta uga soo helayaan xataa adinka weyn baa kusoo ciyaaraysiin dadka ilmaha haysta oo kusoo baxaysaa muddo markaa soo soconay walaal waxaa ku yiraahda cafeteria soo marnay kafee baa kasoo qaadnay roobkii waa kusoo dhaxmoonay haddana saacada kale soo soconay magaaladeeni baa imaanay meesha laga soo gala magaalada dukaamada waaweyn baa ku haysanaa guriga caano kuma ogeen cashana ma rabe saacada cashada kama gaartay caanay keeg baa rabeen la isku cuno caana nooga soo qaad baa caanayna soo qaadanay gurigeena imaanay guriga naga horeeya kasaaka baakadaha alwaaxda waxa is dhex yaala ilaahay baa ka warqaba fiidiyowgaasaan idiin soo duubay waana ni ku soo noqday like saar daageshid waa idin wada salaamayaa dhammaantiin meel kastaa joogtaan nabad iyo caafimaad baa idin rajeynayaa muuqaalo kale waa soo duubi doonaa halkaas baan idinkaga tegayaa gacalayaal bye bye